بسم الله الرحمن الرحيم dhammaantiin waa salaamantiin khiyaarta iga daawanaysa adduunyada daafaheeda waa anigoo ah cabdixakiin suldaan maxamuud cali shire oo jecel inuu ka hadlo situationska Somaliland ilaa iyo gobolka Sanaag oo aan ka imi runtii waxyaabo badan ayaa jira oo qaldan oo ay ahayd waqti hore in laga shaqeeyo ha yeeshee nidaamyadii soo maray Somaliland ayaa arrintaas fulin waayey oo dhulka la dhacay oo jiiday waxyaabaha hadda ka jira gobolladana ama gobolka Sanaag waxa weeyaan dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan Somaliland oo ku feelgarowday dadka inay ku xidhmaan markay taasi dhacday anigu waxaan ka mid ahaa wasiiradii ama golihii wasiirada ee systemkii uu markaa joogay ninka la yidhaahdo Riyaale muddo 4 sannadood ah wax badan baan ku taliyey in hab dhaqan ah la isugu xidhmo oo ifan salaadiinta waqooyigu ay tagaan maxaa la yidhaahdaa ilaa ceelaayo la isu socdo dadkiina dib la isugu xidho oo cultural isdhex galo dhaqanka isdhex galo tii ma dhicin wasiir hebel baa halka maray madaxweynihii wuxuu ku maqan yahay maxaa la imaaraadka iyo kana halka maray wax midalan khaarijiya oo aan dan inoo ahayn deedna waxaynu ka gubanay hoosti ama waxaa gubtay systemkeennii hooste dhibaatooyinkaasu markay dhaceen anigu personally go'aanaan gaadhay go'aanada dib baan ka sheegi doonaa mar dhow baan sheegi doonaa waxaan maalin dhowd maqlaayey ama had iyo joor aan maqlaa dad yidhaahda waxaan la yidhaahdo isticmaalkii ayaa maxaa la yidhahdaa dhulka uu haysan jiray oo dhani waxaa la yidhaahdaa Somaliland oo waa dhul Somaliland ka tirsan 100% wareede maalin dhowdna waxaan maqlaayey nin afhayeenka madaxtooyada ah oo lahaa inta su'aal la weydiiyo loo badan iyo situationkeeda oo lahaa maxaa la yidhaahdaa badani Somaliland bay ka tirsan tahay waa dhulkii isticmaalku haysan jiray oo xadka ilaa iyo halka weeyaan wareede waxa la yidhaahdo wax badanna waan sheegay anoo Hargeysa joogay anoo meelo badan joogay odayaal badan ka wada sheekaysanay waxaan la yidhaahdo boundariesku 3 bay u kala baxaan 3 bay u kala baxaan colonial boundaries markii isticmaalku inoo yimi oo isagu qoondeeyey ama Talyaaniga qaybtiisa ama Ingiriiska ilaa intaas ayaan xukumaynaa oo dabcan ah awood khaariji oo dibadda naga timi iyo markuu baxo isticmaalku oo ah tii dawladnimada ahayd oo dawladda la qaatay deedna maxaa la barasaabka Hargeysa u dhashay Baydhabo la geeyay kii Baydhabo u dhashayna Hargeysa la keeno soo garan waa marxaladda labaad oo boundary soo maray marxaladda saddexaad waxa weeye waa tii dhaqanka ood baa la yiraahdaa ood marka maadaama wadankii inaga burburay state-kii burburay oo dadkii qabaa'il u kala baxeen oo dawladda muujamooye wax kale oo aan meel kale la ixtiraafsanayn Somaliland la ixtiraafsanayn de waxa lagu khasban yahay dhaqan ahaan soo garan in maxaa la yiraahdaa qabaa'ilka maxaa la yiraahdaa waxay raali ka yihiin lagu socodsiiyo deegaanka Sanaag soo garan qabaa'il baale waliba qabiilka warsangeli beesha warsangeli go'aankooda iyaga iskale meesha ku darsanayaan waxa loo baahan yahay marka hore in la heshiiyo haddii aan la heshiin absolutely maxaa la yiraahdaa lama sheegan karo lama oran karo state-kaas ka mid yahay iyaga quran maaha awdal baa ka mid ah maxaa la yiraahdaa saaxil baa meel kasta oo Somaliland ah soo garan waa in marka hore heshiis lagu gaaraa in ay wadaagaan maamulka Somaliland markaasay noqonaysaa region ka mid ah Somaliland haddana waxa idin sheegaya kadib markii talaxumo badan dhacday kadib markii dhaqan ahaan maxaa la yiraahdaa dadkii loo kaabi waayey oo la isugu xidhmi waayey kadib siyaasad ahaan markay failure noqotay kadib markii maxaa la yiraahdaa ay u ekaatay reer quri soo garan inay talada wadanka hayaan qabiilada ka mid ah Soomaaliya oo beesha dhexlay inay talada kaligood isku koobeen runtii beeshaas markii aan general u eego
waa dad fiican laakiin waxaa haysta hoggaan xumo waxaa haysata maxaa la yidhahdaa somalilandta weliba yani waktiga dowladda hadda joogtaa soomaalkana absolutely maaha logic mandaq maaha waa inay dadka gacanta ku dhigtaa waa inay maxaa la yidhahdaa la tashataa maxaa la yidhahdaa khiyaarta nin kasta meesha ku fiican yahay madaxweyne waa in la taliyaa leeyahay wasiiradu waa inay leeyihiin laakiin maaha laba ninta albaab soo xirta go-aan gaadho oo maxaa la yidhahdaa qalad haddee dad ku socotiiso anigu kadib markii qaladaadkaasu dhaceen oo muddana aan ka talinayey maxaa la yidhahdaa waa dadka in laysku xidho waayo anigu mar kasta waxaan ka carari jiray in maxaa la yidhaahdaa hab qabiil soomaali maadaama ku burburtay ay isugu tagto mar kasta waxaan jeclaa inay hab degaan isugu timaado si qabiil ku yaraado laakiin tii way socon weyday somalilan bayna ka socon weyday wax bayna talaan ka dhiibtay waa layga hoos qaadi waaye marka waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo sooma garan inaan kalsoonidii siyaasadeed sooma garan oo somalilan aan dib ugala noqdo waxaana laga bilaabo maanta aan la talahay reerkayga beesha wasageli meesha ku wajahanto ayaan ku wajahnaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu